waxyeelada qaxwada. waa maxay waxyeelada qaxwada xad-dhaafka ah? qaxwaha ama bunku wuxuu leeyahay faa'iidooyin caafimaad marka loo isticmaalo si dhexdhexaad ah ama aan ka badbadis ahayn. laakiin weli waxaa jira aragti ay ka midaysan yihiin dhakhaatiirta, taasoo ah badsashada qaxwada inay keento caafimaad xumo. malaayiin dad ah oo dunida ku nool ayaa ku bilowda maalintooda koob qaxwo ah. maadada kaafayiinta ee ku jirta kafeega waxa uu jirku ka helaa tamar, waxayna ka qayb qaadataa sare u qaadista tarkiiska. sidoo kale waxay kordhisaa heerka dheefshiidka. taasi waa sababta ay dadka qaarkii si joogto ah ugu cabbaan shaah ama kafee cuntada culus kadib. laakiin innaka oo raacayna tala bixinta dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadka iyo weliba talooyin caafimaad oo aan ka helnay bogga rasmiga ah ee wasaaradda caafimaadka ee dalka Jarmalka, sidoo kale faale lagu baahiyey website-ka DW ee laga leeyahay isla dalka Jarmalka. waxaa habboon inaadan isticmaalin wax ka badan 400 milligaraam oo kafeeyin ah maalintii. qadarkaas la sheegay waxay u dhigantaa 4 koob oo kafeega Talyaaniga ah ama 6 koob oo kafeega Carabta ah. haddii aad u isticmaasho si joogto ah in ka badan 400 milligaraam oo kafeeyin ah maalin walba, haddaba jirkaagu wuxuu la kulmi karaa astaamo caafimaad oo wanaagsanayn. haddaba waxaan muuqaalkan kuugu soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah saamaynta xun ee kafeega xad-dhaafka ah uu ku leeyahay jirka bani'aadamka. shuban. badsashada cabista qaxwada waxay sababtaa shuban, taas oo uu sababo hormoonka loo yaqaano kastrin. kastrinku waa hormoon dardargeliya ama cariya soo daynta dheecaamada wax burburiya ee laga soo daayo unugyada ku dahaaran caloosha, taasi oo keeni karta calool xanuun ama shuban. maadada kafeeyintu waxay siyaadisaa soo daynta hormoonkaas, isla markaana waxaa si taxakum la'aan ah u siyaada ama bilowda calool xanuun, kaasoo keena shuban. sidoo kale maadada ku jirta kafeega ama qaxwada ee loo yaqaano kafeeyinta ayaa siyaadisa aashitada caloosha, taasoo dadka qaar ku keenta xanuuno kala duwan oo uu ka mid yahay shubanku. dareemid xanuun. haddii aad ka mid tahay dadka sida xad-dhaafka u isticmaala bunka ama qaxwada oo haddana ka sheegta dhibaatooyin xagga caloosha ah ama dheefshiidka ah, taasi waxaa loo sababayn karaa isticmaalka zaa'idka ah ee aad ku qaadato maadada kafeeyinta. kafeeyinta sidaan hore u soo sheegnay waxay kordhisaa aasidka caloosha, kaasoo horseeda xanuuno ku yimaada caloosha. haddaba haddii aad tahay dadka qabatimay isticmaalka xad-dhaafka ah ee qaxwada ama bunka, haddana ka sheegta xanuunada la xiriira caloosha ama dheefshiidka, waxaa habboon halka aad aroortii kafee ama bunka cabbi jirtay inaad ku beddelato shaaha caadiga ah. dhidid badan. calaamadaha aan wanaagsanayn ee uu isku arki karo qofka badsada bunka ayaa waxaa ka mid ah dhidid fara badan. haddaba haddii aad ka mid tahay dadka badsada isticmaalka bunka oo haddana isku arka dhidid badan ama zaa'id ah, haddaba iska yaree cabista qaxwada zaa'idka ah. maxaa yeelay kafeeyinta ku jirta bunka ama qaxwaha waxay firfircooni gelisaa shaqada maskaxda. firfircoonida neerfaha iyo maskaxdu ay sameeyaan waxay u baahan tahay tamar lagu dhaqaajiyo, waxayna isticmaalka tamartaasi keentaa in uu jirku soo saaro dhidid fara badan. kaadi fara badan. sidaan hore u soo sheegnay, kafeega ama bunka waxaa ku jira maado loo yaqaano kafeeyin. maadadani waxay ka shaqaysiisaa ama firfircooni siisaa keliyaha, taas oo keenta inay u shaqeeyaan sidii caadigahayd si ka degdegsiimo badan, taasoo horseeda in qofka ay kaadidu si isdaba jooga u qabato ama uu ugu baahdo qashin saar xagga keliyaha ah. ugu dambayntii, waxaa habboon in qofku uu joogteeyo ama uu ku dhaqmo qaacidada qiimaha badan ee odhanaysa amuuraha waxaa ugu khayrka badan dhexdhexaysiga. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka.